بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وتابعين بيوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ولا الله كنت حبيتكم السلامي ودرسي البحنمة إسلامك. maanta waxaan ka hadlaynaa kasoo hadla ilbaxnimada iyo see ku bilaabatay iyo sida ummadda muslimka islaamka u bedelay iyo qiyamka ruuxiga ah ee xadaarada islaamiga ee xambaarsaneed ee kaga duwaneed xadaaradihii hore keenay inay faafto, keenay inay balaarato, keenay inay ummadaha iyo shucuubta adduunka dhan isu keento, taas oo ah oo salka ku hayso at-tashriic al-islaami. ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkii uu soo dejiyay ummadda u soo dejiyay oo ay muslimiinta dhaqan u noqday iyo tarbiya ruuxiya. علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان حقوق وواجبات تاسع كانت القرآن كأنتو أخلاق كذا هذا وكذا هذا يا كبر كن إيش بقوله أيضا أخلاق والقيم سيد أخلاق الحربية، أخلاق النبضة، أخلاق القويس، أخلاق المحيط أوبت، أخلاق السوق، أخلاق كل قيم فربضان ومسلمين تا القرآن كله معذي تاسع كأنتو شعوبتي إني مذوبان إسراعان أفكار تودي حضارته استحقالان maxay ka dhalato ka xadaarada ay ka soo dhaxboodo xadaaradii hore oo la isku daray ee muslimiinta limaade oo limaade marka xadaarada islaamku waxay qasaa'is leeyahay marka xuquuq islaamku wuxuu dadka xuquuq kala siiyay qolo qof xuquuq la'aan ma jirto xuquuq wuxuu siiyay bani aadamkii xuquuq wuxuu siiyay xorriya qofka inuu maxay xorriyad ku noolaado aan la gumaysanin oo qofka la madax uga istaagin halkii dawladihii hore dadka ay gumaysan jireen oo ayaga bas kaliya xuquuq lahaayeen dadka kala bilaa xuquuq adooma ay ahaayeen حقوق حق qoyska ah oo labada qofood markay isguursadaan ama reer sameystaan qof walba qofka kale xaq uu ku leeyahay waa ilaa maxay hayto reerkii baa ma dhisan karo xuquuq mujtamac bulshada islaamku sidoo ilaaliyay oo uga badbaadiyay islaam society inuu burburo علاقات دولية مسلمين تحريرات إلى اللي أمضاها كرينتو مسلم كهن أنت سمعت كهذا إن شاء الله تعالى حقوق الإنسان كي حقوق المرأة هذا حقوق الإنسان وحلاسي كلا بحنا أمك الإنسان كحقوق دوسية حقوق المرأة كبر ضمر وبالشدة بركيدة بركة كلا صاريسو حقوق القدم شقالها ضدك كوش قينا استافك عملاء كوش قينا سو حقوق المرضى ضدك حنوسا حقوق الشرع السياسي وذوي الاحتياجات الخاصة ضدك باهي قارك قبو حقوق اليتيم أقونك والدك أبي سواي مسكينك واسق ضير أرملة قبل ونكيد ويسي حقوق الأقليات ضدك لقى تري بدي قبائل يرير محيط ماينارة جروب ليرادو حقوق البيئة إلى أن تديجان كل جنوا لهاي أنت أصلا يا حضارة الصواب وهاد إن الله سبحانه وتعالى حقوق أسي لأن إنسان كجورم وحصوص صار كرا مركو حرية هاي مركو وحصوص صار كرا مركو حق إبادة كليقانو جورم وحصوص صار كرا مركو أقول لا يوسن جاهل إهن مركا أنت أصلا حقوق ده سامر يا إسلامكم كجدونيت حضارة إسلامك إسهامات كحيابها كعيي وقرء قاضي مركا حقوق الإنسان كذا كبلاونه ولقد كرمنا بني آدم إلى الله سبحانه وتعالى أدونك كو أبو ردن وحقوفا اللي بدون كرامه بدون بني آدم حيوانات في عالم الحيوانات عالم الجن عالم الملائكة وسمدا عالم الغيب وحيابها قرصان كل ما بني آدم كي بقوا كرامه بدون الله سبحانه وتعالى وحقوق حنباره أستقر بدء يبرب إنك أديكتان بدء يبرب إنك أديكتان ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ومركا إسلام حرية أسفرها بدل بني آدم كوسية الله سبحانه وتعالى وكو كرامه إن أدونك سينا مده ومعان ونولادان رسولك صلى الله عليه وسلم aad buu uga hadlay arintaas oo xuquuqda bani aadamka markuu islaamka carabta u bedelay markuu sii dhimanayay khudbadii weyneed oo xajatul wadaa u jeediyay oo kaga hadlay arintaas marka dawladihii hore markay iscunayeen isboobayeen isdhacayeen dhulka kala qaadanayeen xoolaha kala qaadanayeen taa islaamku waa diiday oo dagaalku waqti gaar uu leeyahay iyo ahkaam gaarna uu leeyahay akhlaaq gaarna uu leeyahay marka rasuulku markuu hadlay marka fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hada في بلدكم هذا ألا هل بلغتوا وفي شهركم هذا marka wuxuu uga hadlay marka maanta waa maalintee marka soo hasha korkeeda saaran oo dadka sugootinaya xajatul wadaa iyo wuxuu kula hadlay marka maanta waa maalintee waa maalin carafo maantana maalin carafo hadda aan darsigan duubayno allahna waafajiyana aqbalo fa inna dima'akum wa amwalakum maanta waa maalintee maalin carafo meeshan waa tay waa makko waa dhulka meesha ugu fadli badneed bishaana waa tay bisha dil xajja uu dhahay sidaa daraadeed dhiigiina iyo maalkiina iyo sharaftiina waa idinka xaaraan idinka dhexdiina isku xadgudubtaan marka maxaa shariicada islaamka ee diiday waxaa diiday بني آدم إنه بني آدم كله حد قدبه وحقوق ديسي إيه حياة شرف ديسي عرض ديسي أما ديجيس وحلاليسته مكا أو سيد مقالة مكا حرام وتهاي ما أنتان عرفه حرام وتهاي بشد الحجرة حرام وتهاي مكا سامكم حياته يا لو دي قفكي مركا مركي لو دي الكبائر تدون الإشراك بالله وقاتل النفس ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله وحقوق الإنسان حتى قفكي إسديله
ونفسي حتى قفك إنه سندلي كرين من تردى على جو فقتل نفسه فهو في نار جهنم قفك نال اسكو صوت قفك انتو مرغو استيلو نار تك محيته غيريس سو دجيه marka ilaahay waa ku ciqaabaya shayga isku dishaana lagu ciqaabaya shayga aad isku dishay markaas ya ayuha nas in rabbakum wahid wa in abakum wahid kullukum min adam wa adam min turab intaas oo dhan marka waxa way xuquuqdii bani aadamka oo sharciga ay siisay oo ah in labad lagu wada noolaado oo la isdulmin taas xadaarada dhalisa marka hataa muharabatu dhulmi marka dhulmi ina maxay dadka dhaxaysa isdulmin quraanka inta badan wala kaga hadal subhanahu wa ta'ala inni haramtu dhulma alaykum wa ja'altu baynakum haraman fala tadalamu idan hataa islaamku wuxuu diiday dadka inay isdulmiyaan markaas anagu wuxuu dhahay marka hataa faadimo marka xuduud uu ogaayay law anna faadimata bint muhammad sarqad laqada'tu yadaha haday faadimo gabadheeda ay wax haduu yiri waan ka jaray gacanta idan qofka muslimka qofka walaalkiisa maalkiisa ma qaadan karo oo ma xalaalaysan karo marka taas marka waxay keentay in islaamku uu u sameeyo xuquuq bani aadamka dhexdiisa qofka kale ku xad gudbi karin cadaalada waxyaabaha istaayay kamid xuquuqda kale inta islaamku uu sameeyo waxa way المرأة أو بلشة بركيدة مركز تاسع كانت أيضا إن حقوق كويرة حقوق النفقة على زوجها حق الحياة وإذا الموؤودة سئلت إلا الدلاء الشرع دي وإذا بشر قبلها وين عمران جري مكي قبر لسي وحناقة قف مكي ويلو بشارين وقف معتو فرحة مكا سمحوا حالي إن النساء شقائق الرجال dumarku waxa laga jeexay ragga wastawsu bin nisaa khayran dumarku u dardaarma qarqad qodbadi marka maxaa bulshada ayada farcinayso ayada soo saarayso ayada barbaarnayso marka ayada daryeel gaar ah hesha taas markii ayuha naas taqu rabbukum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa naftaha wa batha minhuma rijalan katiran marka basharkii bani aadamka meeshu ka beermanayo waa hooyada meeshu lagu beerayo marka geedkii hooyada bani aadamka soo saaray waa ayada marka xuquuqdeeda waxa la saaray marka ar-rijalu qawwamuna 'ala nisaa dumarku rag waxay u taagan yihiin dumarka markii waalidkeeda markay yar tahay oo binti tahay gabar yar tahay waalidkeeda mas'uulka ah nafaqadeeda saaran tahay markii la guursado ninkii qaba mas'uulka ah markay duqood wiilkeedii ilmaheedii yaa mas'uulka markaas maxay ahayd tasuuqsa marka yaa tii gabadhi hataa guurka weyso aanki xul ayaama oo ninkii hore ka dhintay u guuriya lahay al-aymu haqu bi nafsiha al-bikru tusta'dhan fi haqqiha marka intaas u sharci ma jiro markaas ma jirto diin sharci ka weyn oo ka fiican oo gabadha xuquuq siisay xuquuqul mar'a iyo tahriirul mar'a waxyaabaha la daldalay dhan ama laga soo bin guurinayo umadaha kale inta wax islaamka inuu fasaadiyo lagu burburiyo lagu talagalay xaq walba sharciadu waxay siisay dhaxal oo suuratu nisaa gabar sababtay kusoo degatay waxay siisay nafaqo intay nooshahay waxay siisay daryeel kaamil waxay siisay hataa lacagaha welfare maanta ee gaalada ee hooyada siiso Umar ibn Khadaab bilaab inay soo saarto jiil wanaagsan oo qurxan ilmaheeda niyad u hayso aysan ka fakirin waxay cunto iyo meel seexato marka taas marka xuquuqda marka aydan xadaarada waxyaabaha kiciid dumarka kama kaalin ka aha gabdhihii in wax la baray oo jahliga laga saaray oo umada muslimka kaalin ay ka ahaayeen cilmiga qoristiisa kaalin weyn ka ahaayeen soo saaritaanka jiilasha qurxan saanicatul muluk boqorada soo saaritaankiisa culimada dadka waa nisaa ka wan culama soo saaritaanka culimada kulli gabar kulli culimada waa weyn taariikhda ku jirta gabdhaha soo saaray حقوق القدم والعمال شقالة قفك إن هذا عبيد سلين أو ظلمين ما كاسك دقالة فانت وذيكو شقينا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أنا أسكو سقرني مركا قفنا دقالي هستا قف أقومتي هستا قف حوقي هايا قف فكركي هايا مركا والسكو كرنولي هاي مركا قفك أديك سنيسو oo aad maxay aad shaqeeyaysan kuuma ogol shariicada inaad dulmiso ka xadgudubto haduu ku shaqeeyo lacag gaar ah khidmad kula si intuu sididkiisa qal aacad al-ajira ajru qabla an yajifa arquhu si qofka maxay ahato in dhidkiisa intuusan marka ma la ogol marka shariicada inaad qofka aad madax uga istaagto oo dulmiso oo ku xadgudubto taasna waxa way marka in bani aadamka dhexis uu kala nabad galo bani aadamka dabaqad kasta oo qofka uu joogo haduu dabaqad ladan yahay dabaqad hoose yahay dabaqad shaqaale haduu yahay la dabaqatiya fi islam ma la kala sareeyo la fadl al-arabiyyin ala ajabi illa bi taqwa waxa lagu kala sareeyo waxa waaye alla ka cabsi marka taas uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam sidoo kale xuquuqda kale dhalinyarada in la ihtimaam galiyo yaa macshar shabaab rasuulku jiray man istadaa'a minkum alba'ata falyatazawwaj in xaraanti la dagaalamo ilaalinta bulshada guurso qofkii awoodo saxaabi kale ku dhayaa rasuul ma guursatid ma guurso ku celin marka dan hay amar yir guurso marka xataa rasuulku dabaqad kasta ee mujtamaca maxay ahayd kamida aad buu u keer gareyn jiray reebaadiyaha u imaanay dhalinyarada waayeelka dadka baahida gaarka qabo hada sheegi doona marka kulli marka taas keentay mujtamac inuu noqdo mujtamac nadiif ah oo siman oo maxay ahayd dhinac walba ka dhisan markaas xadaarada istaagtay markaas xadaarada ilbaxnimada istaagtay sidoo kale xuquuqda kale islaamku uu sameeyay xuquuqul marada wa dawil ihtiyaajat al khaasa
dadka baahida gaarka qabo in la tixgeliyo xuquuqda mesela islaamka ka hor qofka haduu curyaan yahay haduu indhool yahay haduu dhagal gurigiisa familkiisa bas uu la nool yahay cid kale intuu culays ku hayo cid maxay odanayna ma jirto cid kale intuu baahidiisa fiirinaysa ma jirto la islaamka taa uu ka duwan yahay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka cafiyay takaaliif badan oo maxay dadka kala saaran yaa ay la takaaliiful jihaad kale waa laga cafiyay maxay ahaato laysa ala ama harajun wala ala al-a'raj harajun wala ala al-marid harajun Allah subhanahu wa ta'ala kan indhoolka waxba dhiba kuma jabno macnaa inuu jihaad aad qasab kuma aha kan maxay ahaato jiiska socon karin oo lagu biraha ay wax ku soconay asagana sidoo kale inta jihaad waajib kuma aha kan xanuunsan dhinaciisa dhulka yaalo caafimaadkiisa qalad maxay ahaato khalal u ka galay asagana wax laga rabo ma jirto marka xataa gurigiisa ku tukan kara qofka duu xanuunsan yahay oo caduruf caafimaad haysato marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu qofkii u horeeyay qof baahi gaar ah qabo shaqaalaysiiyo Abdullah ibn Maktub marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam ومركا maxay ahayd u dhiibay aadaanka uu siiyay shaqaale ka dhigay muwadaf ka dhigay staff ka dhigtay inuu u adimo salaada adinka koowaad uu adimo in dhowl buuna ahaa markii dambana dagaaladii maxay calanka loo dhiibay kaasoo calanka uu dagaalada ku dhintay marka bulshada muslimka waxay kaga duwanayaan ummadaha kale inta waxaa loo sameeyay isbitaalo gaar oo dadka baahida gaar kale lagu daryeelo waxaa loo sameeyay guriyo gaar oo lagu daryeelo waxaa loo sameeyay xuquuq gaar iyo dhaqaale gaar iyo mushaar gaar in la siiyo qofka baahida gaarka qabo oo dawladda ay siisay marka taas keentay marka xataa markii dambe islaamku uu faafay oo muslimiinta waqti amawiyiinta kale inta waxa la sameeyay awal mustashfa baymaristanaat waxa loo yaqaan isbitaalo way maan doontaa insha Allah xagga cilmiga marka isbitaalaas waxa lagu daryeeli jiray dadka baahida gaarka qabo ay dadka xanuunsan ee reysan waayay cudurada azmi muzmina la socod xanuunka la socod dhiig karga joogto uu qabaa dhiig sokorga joogto uu qabaa kaliya xanuun joogto uu qabaa neerf xanuun joogto uu qabaa dadkaas lagu daryeeli jiray markii dambe dana waxa bilaaway mustashfa mutanaqil isbitaalka wareegay maanta la isticmaal dhaqaatiirta wareegto muslimiinta bilaaway marka intaas waxa daryeelka islaamku u daryeelay bulshada muslimka ah iyo xuquuqaha halkaas marka xadaarada ka soo dhaxdhalatay ka soo booday waxa kale islaamku xuquuq siiyay xuquuqul yatiim wal miskiin والأرملة قفك علمه حتى عندنا الإله مضيعين عندنا الإله مضيعين عد كسر شريعة حقوق يكون سياسي سيدو كلا أنت والد علمها والد كود حجابتي علمها قرآن كان وشة وكان أبوهما وعمل جدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز وكان تحته كنز وكان أبوهما صالحا هذا شيء أبوه حقوق قف وناسن مركا دربي حوله أبوه قتك ودربي هوس يسكدونا إلهي وإلهي مركا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر intaas uu yar yahay oo koriimada uu ku jiro inaan inta laga faa'iideysto xoolihiisa la qaato aabihiis wuxuu uga tagay la boobo asagina marka wax lagu koriyo la waayo oo ciil halka ku barbaaro iyo faqri iyo duruuf ku barbaaro islaamku waa diiday ilaahayna mowqif adag uu kaga quraan kaga hadlay inna alladina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira qofka cuna xoolaha agoonta wuxuu cunayna calooshiisa naar marka shariicada ay siisa marka kan kale inta sidoo miskiinka danyarta ah maxay hayto wa ama safinatu fakana lil masakin ya'maluna fil bahr wa kana maxay hayto wa kana ma ka u dhahay masaakiinti iyadana sidoo kale doonay lahaayeen laakiin hadana inay masaakiin yihiin la sheegay marka iyadana waxa xuquuqa la siiyay yaa laga qaada xuquuqda aqniyada laga qaada waxa la siinaa fuqarada iyo masaakiinta la siinaa inma sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum sadaqada waxa iskala masaakiinta iyo fuqarada idayarta iskala qofkii qaniga ah sadaqa ku waajibayso oo marka ilaahay inagu wuxuu leeyahay wa'lam anna la iftarada 'alayhim mu'aad wuxuu u diray yaman أنا لا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم قفك قنية لعكتي قيبوا بحراية سنويا يا لسينا يا قفك كلينته ومساكين ولي من بني جنس يا أصلا ما يكونوا لها كل النور marka taasna maxay keenaysaa dadku in dabaqiyad ahaan kala sareynin oo dhaqaalaha bas dad gaar iska haystaan inta kalena eber noqdaan adooma ahaadaan taa weydii marka kana sadaq lacag laga qaaday kana la siinaya idan xuquuqda miskiinka bulshadu wuxuu ku leeyahay aqniyadu ku leeyahay armaladii sidoo kale gabadhii laga dhintay أساعك الأربعة كالمجاهد في سبيل الله وكالمقيم في الليل أمك maxay ahayto labadii qof gabadhii maxay ahayto ninkeeda dhintay oo nin kale aan guursan ayadana qofkii u adeego u khidmeeyo wuxuu u dhigmaa asagoo jihaad fi sabilillah am ku aaday ama wuxuu u dhigmaa qof habeenkii dhan qiyaamul leyl u taagnaa marka intaas oo dhan waxay shariicada ay sameysay waxa waaye oo keenaysaa xuquuqda dadka dhexdooda isku leeyihiin ee shariicada marka waxa yaraanaya dulmiga dadka isdulminayna yaraana qof kasta xaq iyo miisaan gaar ah shariicada siisay waxaa shariicada dana siisay xuquuq siisay ahlu dhimma dadka muslimiinta ah dadka aan muslimka ahayn ee muslimiinta la nool
ومسلمين تنال لكن الإسلام كان قادنين أينا جنسي على قاعد جري حقوق الأقليات اللي جري أحكام أهل الذمة مركا عدين مركا محي لا عدات إن دتك مسلمين هن لكن عالم كمسلمين يكون أنا تاسنا محي كين دتك قال إن الأوكل كسر عران يدولة جميسنا كسر عران جري الأوك الإسلام كسر دق جري شام كسر دق جري مصر إيمان جري وقوي أفك كان إن بتقلية حرية المسلمين تحت كهلايا كلي بس قفك شقية إنه جنسي بحية أينا سيدا سكن أنت حنوسن أنت ويلك أنت دمرك أنت عرورته من waxba laga qaadi jiray kan shaqaysto muktasabka bas laga qaadi jiray canshuurna dhaqaalahooda shaqada waxa laga qaadi jiray tijaaradooda iyo ganacsigooda idan islaamku waa dadka waa diinta kaliya u horeysay ee xuquuq siisay dadan ayaga ka tirsaneen oo marka ayaga la nool marka taas aydan waxay keenin jirtay muddo ka bacdi inuu qofka iska soo islaamabo oo islaamka qaato muslimiinta ku dhex noolaado oo ku dhex muddo ku dhex noolaado inuu maxay ahaato oo muslimiinta oo maxay ahaato kamid noqdo oo diinta islaamka qaato waxa islaamku xuquuq siisay حيواناتك حقوق دلسيسة أيضا حيوانك إن الواحد قد بين حيوانك كان لقضه جيل إبلة إن هذا ديلي كرين إن هذا صح معناتها ما كلا جورعة فإذا قتلته فأحسن القتل وإذا ذبحته فأحسن الذبح ما كقابك لو قال حتى شرع على شيكتي إن حتى بهيمة حيوان إن هذا محيط هذا ديلي كرين إن هذا وجهي كرين رباحي كرين إن هذا جوبي كرين إن هذا محيط هذا أبها إن هذا محيط هذا كل عياري كرين إن هذا كدين كرين وح لغته وبرتفلار لغته وراك أنت أنا ناف حيوان والنبي قصد دعوة وعبادة يلا شيء متكل أنت قبر كل أنت لأن عذبت امرأة في هرة كحبستها نيف مكلال يا قبر لو عذابه صوت maxay hilib ay ka cuntay way ceersatay way qabtay guriga ku xirtay marka guriga marka ku xirtay hilibna ma aysan siinin cuntada risqi ay raasan lahayd way ka xabistay meeshii ay ku dhimatay cad yaro hilib ay ka qaadatay bas marka gabadhi waa lagu ciqaabay naar u gashay mukulaal sababteed marka falaahiyad tarakatha taakul min hashaa'is al-ard wala hiya akalat adama ayda cuntana ma aysan siinin mana aysan sii deynin taasaa marka maxay ahayd waxaa keenaysaa in allaha rafiiqun yuxibu rifqa in xayawaanaadka loo dhimriyo oo lagu xadgudbin markaa qaranayso markaa ku intifaacayso midna inaada dulminin xataa xayawaan haddaad dulmiso ilahi waa kugu ciqaabaya wuxuu kaloo islaamka xuquuq siiya albii'a ilaalinta deegaanka ina ilaalinta oo markaa qofka meeshu ku nool yahay ittaqul malaacin meelaha lagu nool yahay oo dadka ka wada dhexeeya maraafiqul caama la yidhahdaa dhulkan la isla degan yahay haddii xoolaha la wada daaqana daaqa in maxay la wada qaybsado biyaha in la wada qaybsado maxay ahayd meelaha dadka ka wada dhexeeya مثلا geedaha hoostooda madaarista maxay ahayd ceelasha meelaha maxay ahayd geedka harka kulli waxa la diiday dariiqa meesha la maraayo inaan lagu ciyaarin dariiqa kale muslimiin waxyaabaha meelaha la dhiso marka dariiq la dhiso dariiqaas deegaan laga ma dhigan karo qofka ma degi karo ganacsi kama soo karo dariiqa dhexdiisa dadka maraayo xoolaha maraayo gaadiidka maraayo marka dariiqaas dadka ka dhaxeeya qofka inuu isku ciyaar xataa najaaso inuu ku saxaroonin oo wasaqaynin oo qashin ku soo daadinin sharciyada way diiday ittaqul malaa'in qofku waa marka dariiq maraayo qofku markuu dariiq wasaq ku arkiya soo dhiga alcadab maxaa qofku waa ku habaara waa ku caynaa marka ku dhibsanaa ish habaarkaasi hadalkaas xun qofkii ku dhacaysa qofku waxaan sameeyay laakiin sharciyada waxay diiday geedka hoostiisa in lagu saxaroodo dariiqa hortiisa xeeto in lagu hasarado meesha harka dadka ku nasanayaan ku sheekaysanayaan ku faakihaysanayaan in aydan wasaq la dhigo oo lagu ciyaaro intaaba sharciyada way diiday marka deegaankina wuxuu ka dhigay islaamka meel uu ilaaliyo oo maxay ahayd oo la xafido si dadka meesha ku nool yihiin ay noqoto meel saxadeeda nadiif tahay caafimaadkeeda nadiif tahay intaasoo xuquuqa intaasoo xoriyada marka wuxuu keenay islaamka xadaarad qurux badan inuu la imaado darsigeena ka noqon doontaa xoriyada xagga caqiidada iyo fikirka iyo xoriyatu nafsi iyo xoriyatu tamalluq sida dhaqaalaha qofku u sameysanayo darsigeena ka noqon. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.